السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن عافماد بان إني رجينيا مقالك waxaynu ku soo qaadanaynaa saddex yareeya hormoonka testosteronka. Hormoonkaasi waxa uu awood siiyaa ama ability-ga qofka uu siyaadiyaa ninka inuu gudan karo sariirta ama galmada ama xaajada gogasha inuu ku fiicnaan karo. haddaba hormoonka saddex cunto oo yareeya ayaynu muuqaalka insha Allah ku sheegaynaa. saddexdaasi waa bread, white rice iyo pasta. saddexdaas cunto saddexduba waxay yareeyaan hormoonka lagu magacaabo testosterone hormone ee raganimada awoodeeya ama kobciya. haddaba raggeenu iyagoo daa'ada dhalinyaranimada ku jira iyaga oo daa'ada markaa kontaneeyaha aan gaadhin ayaa waxaa lagu arkayaa ninkii oo aan gogasha ku fiicnayn. dabcan marka ninka dareenkiisu hoos u dhaco waxyaabaha dib lagu noqonayo ugu waaweyn waxaa ka mid ah cuntada uu qaato ama uu isticmaalo iyo xaaladiisa caafimaad iyo markaas lifestyle-ka uu ku nool yahay environment-iga ayaa sidoo kale lagu laabanayaa ama deegaanka. haddii marka aynu isu taagno xaaladdan aynu ka hadlayno ta koobaad waa roodhida daqiiqda laga sameeyo ee aan wax kale lagu darin waxay yaraysaa hormoonka. waxaynu isweydiinaynaa daqiiqda caadiga inta koor ee aynu cunno waxaa laga yaabaa inaynu ku cashayno oo ku quraacno. haddii qofku uu daqiiq ku casheeyo kuna quraacdo waxaad markasta xasuusnaataa haddii waxaad ku isticmaalaysaa aanay ku jirin faytaminaadkii iyo borotiin iyo markaa other mineralska iyo macdanihii kale haddaanay ku jirin mar kasta nafaqada jidhkaaga hoos bay u dhacaysaa, hormoonkaasuna wuu sii yaraanayaa ama hormoonkaasi hoos buu degayaa. bariiska cad, bariiska laba nooc weeyaan, mid waa organic midna waa non organic. bariiska noociisa cad ee weliba non organic ahaan dabeeciga ahayn isaguna waxa uu hoos u dhigaa oo uu yareeyaa hormoonkaas raganimada qaabilsan, kaasuu isaguna yaraynaya. ta ugu dambaysa waxa weeyaan baastada laga sameeyo daqiiqda iyaduna waxay yaraysaa hormoonka. haddaba saddexdan shay raggeena way ku badan yihiin. waxyaabaha dabeeciga ayaa kaaga fiican marka nin xaasla atay inaad digir isticmaasho iyo inaad isticmaasho markaa cuntooyinka galka iyo gas kale ee digiraha sida markaas arabakhida iyo kuwa kale ee soo raaca ee gal kale sida hadhuudhka, qamandida, kuwaasoo shiidato ayaa kaaga wanaagsan. iyo sidoo kale inaad cuntooyin kale oo qudaartu ay u badan tahay aad ku badnaato. inahaasaynu ku soo ururaynaay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.